xabso kuweyn ayaa dhowaan soo bandhigtay jaceylkeeda cusub kaasoo lagu magacaabo hanad waxa uu ka mid yahay dhalinyarada adeegsata tiktok-ga. kuweyn xabsa iyo hanad ayaa dhowr fiideo isla soo duubay saacadihii ugu dambeeyey iyagoo muujinaya xiriirka ka dhexeeya sida ay isku daneynayaan. muuqaaladii ugu dambeeyey ayaa ahaa kuwo baraha bulshada aada u qabsaday oo dadku ay isla dhex marayeen. xabso kuweyn oo fadhigeedu yahay nairobi waxay noqotay gabadha ugu hadaleynta badan uguna saameynta badan dhanka social mediaha. dhowaan uun iyada iyo cabdal roy ayay dadku aada u hadalayeen iyadoo la muujinaya sida ay dadku u arkaan xiriirkooda maadaama dhowr fiideo ay kasoo wada muuqdeen. inkastoo ayadan dambe ay hakad galeen muuqaaladii ay si wada jira ugu soo bandhigayeen, haddana waxaa jiray dhowr xiriirood oo horey oo loola xiriiriyey xabso kuweyn kuwaasoo hadba qofkii lagu arka dadku ay intooda badan muujiyaan amaba ay kusoo koobaan inuu yahay xiriir cusub oo iyadu ay sameysanayso. kuweyn xabsa xaaskii hore ee rashka boy waxaa jiray culeys kala duwan oo uga imaanaya dhanka taageerayaasheeda oo ku aadan xiriirada kala gedsan ee hadba ragga iyadu ka agdhow qaarkood ay la sameynayso iyadoona lagu cadaadinaya in nolosheedii hore ay dib ugu noqoto islamarkaana asturnaantii iyo xijaabkii akhlaaqdii wanaagsaneed ee lagu yaqaanay kolkii ay wada joogeen rashka boy in ay iyana la timaado islamar ahaantana gebi ahaanba noloshan caanka ay isaga baxdo ama caannimada dhibaatooyinka ay leedahay oo ay ka mid tahay in dumarka soomaaliyeed ay wajahaan fadeexado aada u tira badan sida ay hadalka u dhigeen qaar ka mid a dadka tiktok-ga adeegsada. kuweyn xabsa ayaa muddooyinka ugu dambeeyay ahayd gabaar markaasi qunyar socda, inkastoo dhanka hadalhayntu aynan ku badnayn haddana waxa ay dadka tiktok-ga aada ku adeegsado ay muujinayeen sida aynan ugu faraxsaneen xiriirada kala gedsan ee gabadhaasi ay soo bandhigaysay. kuweyn xabsa waxay ka mid tahay dadka sida joogtada u adeegsada baraha bulshada gaar ahaana tiktok-ga oo ka mid ah meelaha sida aadka ay dadku ugu badan yihiin. waxaa jiray khilaaf iyo sidoo kale isfahan darro u dhexeysay iyada iyo qaar ka mid a dadka tiktok-ga adeegsado gaar ahaana hablaha. dagaalkaasi oo ahaa midkii ugu saameynta badnaa ee kala dhexeeyay rayaan bajaaj. hase yeeshee waayadan dambe waxay u muuqatay mid aada uga gaabsanaysay dhanka hadalhayntuna waxa ay ahayd in muuqaaladeeda ay ku yaraayeen barta youtube-ka, inkastoo videoya si maalinlaha ay ugu soo bandhigaysay tiktok-ga. iyada iyo sidoo kale hanad waa lamaano imika cusub sida muuqato, waxaana ay muujinayaan sida ay isugu faraxsan yihiin. hanad ayaa soo bandhigaya videoyo sidoo kale qoraallo ayuu halkaasi soo raacinaya oo kusoo qoraya videoyadaasi kuwa uu ku sheegaya in uu ku faraxsan yahay islamarkaana uu aada u daneynayo kuweyn xabsa oo si aada dadku ay ugu yaqaanaan nolosheedii hore ee gaarka ahayd ee kala dhexeysay rashka boy. walow calafkii uu kala dhaqaajiyey haddana waxa ay iyadu markaasi hadba midka ay la kulanto ay iyadu la sameynaysay muuqaalo kala gedsan, inkastoo aanan la ogaan karin xiriirka gaarka ama cidda ay si gaara u jecesha, laakiin marar badan waxay iska fogeysay inuu jiro nolol jacayl ama xiriir jacayl oo kala dhexeeyo qaar ka mid a dadka baraha bulshada aadka u adeegsada.